maalmihii dambe waxaa soo baxay macluumaad ku saabsan in isku shaandheyn lagu sameyn rabo golaha wasiirada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya sida ilo xogagaal ah ay nala wadaageen xogtan isku shaandheyntan ayaa si weyn waxay u saameynaysaa wasiirada PEA loo kala qaado marka loo eego awood qaybsiga dalka gaar ahaan wasiirada ugu waaweyn ee eedaha sida wasiirka arrimaha gudaha arrimaha dibadda iyo waliba wasiirada kale ila xogagaal waxay noo sheegeen in xubnaha mucaaradka ee dowladda federaalka ku ay xisbiyada ku jira markan dowladda ay qorsheynayso inay kala dhantaasho lala dhiso xukuumad wadaag ah oo ay u dhigeen mucaaradka iyo xukuumadda si ay dowladdu ayna u shaqeyso 2 sano dheeraad ay ugu darsato xukunka dalka maadaama waqtiga dowladdu haray uu yahay 1 sano oo kaliya dowladda federaalka Soomaaliya ayaa marka loo eego waxa uu haray 1 sano oo ay doonayso inay xafiiska joogto kadibna doorasho ay gaarsiiso halkaas sano ayaa laga filayaa in dalka ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah sidoo kale waxa uu qorshe u yahay in guud ahaanba dowladdu ay dhameystirto nidaamka dastuurka dalka uu qaatay waa nidaamka dastuurka sidoo kale in doorasho qof iyo cod ah Soomaaliya ka dhacdo isbeddelka golaha wasiirada ayaa la sheegay inay saameyn doonaan wasiiro badan dowladda ayaa qorsheynaysa in xubnaha mucaaradka kuwooda ugu tunka weyn la kala dhantaalo dowladda lagu soo diro ilaa 12 wasiir ayaa loo ballan qaaday xubnaha mucaaradka inay xukuumaddu ay ku yeelan doonaan dalabkaas ayaa la ogeyn sida ay ku aqbali doonaan arintan waxay xoogeysatay kadib markii madaxweynaha Soomaaliya mudane Maxamed Cabdilaahi Farmaajo uu qadka telefoonka kula xiriiray madaxweynihii hore Shariif Sheekh Axmed isagoo doonayay in kulan ay wada qaataan oo arinta ku saabsan inuu aqbalo wadaag xukuumad ila dhiso mucaaradka ay wasiirada ay ku yeeshaan Xasan Shariif ayaa ka cudur daartay la kulanka madaxweyne Farmaajo isagoo u sheegay in markan uusan kaligiis ahayn uu doonayo in ay hadii kulan u dhacayo xubnaha saaxiibadiisa oo Xasan Sheekh iyo kuba kale ku jira in la kulmaan dowladda ayaa culus weyn u arkaysa isbahaysiga ay sameynayaan Xasan Sheekh Maxamuud Shariif Sheekh Axmed sida darteed si loogu hortago ay dowladdu qorsheynaysaa sida ila xogaal ay xogtan la wadaageen in xukuumaddu ay kala dhantaasho xubnaha mucaaradka 12 wasiirna lagu xaqriyo ama la siiyo golaha wasiirada cusub ee wadaaga la dhisi doono kana imaan doonaan xubnaha mucaaradka sida ila xogaal ay noo xaqiijinayaan villa Soomaaliya ka tirsan waana qorshaha ay dowladdu ay damacsan tahay waxaas arintan hadda dowladdu culeyska wajahaysa qaybka oo ka biyadiiday in xisbiga uu hogaaminayo Shariif Sheekh Axmed laakiin waxa suurtagal ah xubnaha kale ee xisbiyada sida xisbiga Cabdiraxmaan Cabshakuur iyo kuba kale la siiyo wadaaga hadaba dhanka kale daawadayaal waxna eegeynaa wasiirada sida gaarka u saameyn karaan isku shaaneyntan xogtan helnay waxay sheegayaan in wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad uu yahay wasiirka koowaad ee weyn kara xilkiisa maadaama hadda la tilmaamayo in asaga iyo waliba rajaha Soomaaliya sidaas ay isku fiicneen waana wasiirka koowaad ee la calaameeyay ee suurtagalka isku shaaneyntan xilkiisa wasiirnimo uu ku waayo waxaa kaloo soo baxay macluumaad ku saabsan in wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya Masar Sabriyo qayb ku yahay xubnaha wasiirada xilalkooda weyn kara lana doonayo in xubno ahlu sunna ay wadato lagu qanciyo sida ila xogaal ay xogtan la wadaageen waxa kale wasiirada xilalkooda weyn ay kamid wasiir ku-xigeenka kalluumeysiga ee kheyraadka badda ayaa asna qaybka xubnaha xilalka weynaya waxa kale oo ku jira wasiirka shaqada iyo shaqaalaha xukuumadda Soomaaliya ayaa qaybka wasiirada isku shaandheyntan xilalkooda ku weyn kara qorshaha ra'iisul kheyr ayaa ama ay ku doonayaan in lagu dhiso xukuumad wadaag ah una dhaxeeya dhammaan dhinacyada mucaaradka